حسين هذا ما سنتهي من البرد وحاكي جبتو حالة الهواء دولي لتا حريها بركعياشا مالين تقدم بيسو حاسو قاريو ضد بركعيالا وكفو بركعي ميغا قبل كجلو يباي بقول تصالحان حربا إستين أو خميدا حريها بركعياشا يتقمد البرد سيدا وربحنا لأسكوار كيسين waxaan ku dhintay dad gaaraya 280 qof toddoba bilood ee halkaas degnaayeen 240 ka mid ah waa caruur halka inta kalena yihiin dad waaweyn marka xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata ayaa ka jirta ayaa la dhihi karaa xeryaha barakacayaasha degmada Baardheer yaa tira koobay oo xaqiijiyay tirada dhimashada inay inta gaarayso waxaa jira guddi ka kooban culimo diinka degmada Baardheer iyo waxgaradka degmada iyo hay'adaha maxalliga iyo DBS kuliga oo guddiga xeryaha barakacayaasha guddiyo noocaas ayaa jiro oo iyaga iskooda isku xilqaamay in ay dalkaasi u gurmadaan oo maalmo u dambeeyayba magaalada gudaheeda dadka wax looga aruurinayay marka guddigaasi ayaa la socdo waxaa ka jiro xeryaha barakacayaasha iyaga ayaana shalay sheegay marka ma dadka miyi ka yimid markay yimaadaan miyi dhimanayaan oo gaajo u dhimanayaan mise deegaankaas kuwii ku noolaa ayaa sicir barar iyo abaartu ay saameysay mise waa dadkii magaalada soo galay dadka dhimanayo dadka barakacayaasha oo miyi ka yimid waaye baadiyaha sida Gado Bay iyo Boqol ma ahan dadka waxay u dhimanayaan gaajo iyo maaha macluul kaliya sidoo kale waxaa jirta in dadka cudurro ay u dhimanayaan caruurta siiba waxaa jirto cudurka jadeecada ayaa soo noo dilaacday xeryaha barakacayaasha marka gaajo cudur iyo waxyaalo noocaas ay dadku u dhimanayaan maxaa dadaal oo socdo dadkaas loogu gurmanaya waa doctor wallahi dadaal hadda muuqdo oo dadkaasi loogu gurmanayo kama muuqato Baardheer marka laga reebo qeelaan ay dirayaan guddiyada aan soo sheegnay guddiyada abaaraha degmada Baardheer culimo diinka iyo dadka waxgaradka isku jiraan baaqiyo la soo saarayo ma ahane ma jirto Xuseeno wax gurmad oo hadda muuqdo oo wax looga qabanayo arrinta hadda taagan macluusha isku bedeshay